safaarada dalka Turkiga ee fadhigeedu yahay dalka Djibouti ayaa deeq raashin soo gaarsiisay isla markaana u qaybisay in ka badan 200 oo qoys oo kamid ah dadka degan magaalada Saylac iyo nawaaxigeeda. qaybinta deeqdani oo ay goob joog u ahaayeen maamulka gobolka Salel kuwa degmada Saylac iyo mas'uuliyiinta sare ururka Ramad oo iyagu qaabilsan isku xidhka safaarada Turkiga iyo bulshada ku dhaqan gobolka Salel ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay وقيبسمها أرمها إسلام كسفارة تركيا كلها هاي دلك جيبوتي. وصلنا إلى هذه المنطقة الذي من قبل من دولة الأول كانت دولة عثمانية هنا حاكمين والدولة العثمانية حكم في هذه البلدة جميلا وبقي آثار المناطق مساجد مدارس مكاتب بكل المشروعات الدولية والاجتماعية. إن شاء الله من بعد كان معارفة بيننا في هذه المنطقة الزيلع. أول كان عاصمة المنطقة هذه المدينة عاصمة الثقافة عاصمة التعليم والعلم عاصمة التجارية والعسكرية. وحكلا أو يسقون هالكاسي كهالله دوقة دقمة السيلع عنها قدوميها قولها ديجان كي دقمة السيلع مدن الساعة الظاهر عقر ريراش. وحاي لوكينا ولا لهنا تركيا أي هرك عيان ururkan ka tirsan deegaankan reer Djibouti oo hawlo badan oo xagga waxbarashada iyo xagga caafimaadka ka fuliyo ee Ramad ay horkacayaan waxay noo keeneen raashinkaas oo ka kooban 200 oo qoys 200 oo qoys runtii waa dad u keenay dad danyarta weeyaan waqtigii loo baahnaana way keeneen waa xilli loogu baahnaa waa xilli ku munaasiba aad iyo aad baan ugu cilmi walaalihina Turkiga ee nagu soo caawiyay mucaawarada noo keenay walaalkeen waxay xagga islaamka u qaabilsan Djibouti safarada Djiboutina aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxa kale oo isna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay xildhibaan aadan Cabdullaahi Boorle waran galbeed aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa iyadoo ah waqti loo baahnaa ay ku soo beegeen raashinka waqtigii loo baahnaa ay ku soo beegeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa walaalaha iyaga soo horgaabiyay iyo inta soo bixisayba halkii aad ka soo bixiseen wax ka khayr badan Ilaahay ay idinku bedelaan. waxa isagu ugu dambeyntii halkaasi hadal mahadnaqa uga soo jeediyay mas'uuliyiintan ka socota safaarada dalka Turkiga barasaabka gobolka Salel mudane Axmed Naasir Maxamed Xaashi. idinku mahadcelinaynaa deeqda raashinka ay noo keenteen xilli fiican buu ku soo hagaagay xilli dadku u baahnaayeen Ramad iyo hay'adda Turkiga gobolka runtii caawin fara badan ka geysteen intaas oo maahay waxaan jecel lahay inaad sii kordhisaan oo waxyaabo fara badan oo kale aad wax nagala qabataan wadooyinka ku jira. Maxamed Cawaala Daahir Hon Cable TV Saylac.